saaxiibada beesha caalamka ee fadhigoodu uu yahay magaalada Muqdisho ayaa qoraal wadajir ah ka soo saaray xaaladda dalka gaar ahaan go'aanadii ka soo baxay shirkii golaha wada tashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. xubnaha ayaa soo dhaweeyay isafgaradka ay gaareen ra'iisul wasaaraha, madaxda maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ee ku aadanaa arrimaha doorashooyinka ee dalka. saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamku waxay garwaaqsadeen in shirkii golaha wada tashiga qaran ee socday 3 ilaa 9 bishan Janaayo lagu gaaray is-afgarad la isku raacay ee ku saabsanaa wax ka bedelka iyo dib u habeynta habraacyada iyo dadejinta waqtiga doorashada golaha shacabka ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka. sidoo kale beesha caalamka ayaa shaaca ka qaaday in aad ugu faraxsan tahay heshiiska cusub ee ay saxiixeen madaxdu kadib la tashiyo ay la sameeyeen dhinacyada kala duwan. waxaan ku faraxsanahay in ra'iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ay qaateen go'aano ku saleysan wada tashiyo lala yeeshay bulshada rayidka, wakiilada haweenka iyo xubnaha mucaaradka ayaa sidoo kale lagu yiri qoraalka ay soo saartay beesha caalamka. war-saxaafadeedkan ayaa sidoo kale waxaa lagu dalbaday madaxda in dalka markaasi ay eegaan danta guud ee qaranka ayna ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara xiisad horle. waxaan ugu baaqaynaa dhammaan hogaamiyeyaasha siyaasadda Soomaaliya in ay danta qaranka wax walba ka horeysiyaan ayna mudnaanta siiyaan soo gabagabeynta hanaan doorasho ay dadka Soomaaliyeed si weyn u aqbalaan iyo in ay ka fogaadaan daandaansi ka weecin kara hanaankaas oo kordhin kara khatar iska hor imaad ama rabshado. dhammaan madaxda waa inay xaqiijiyaan in ciidamada amniga aan loo adeegsan hab siyaasadeed ayaa mar kale lagu yiri war-saxaafadeedka beesha caalamka. ugu dambeyn waxay beesha caalamku hoosta ka xariiqday inay tahay in hogaamiyeyaashu dhaqan geliyaan qodobada ay soo saareen ayna degdeg ku dhameystiraan doorashooyinka dalka. waxaa la joogaa waqtigii ay dhammaan madaxda Soomaaliyeed diiradda saari lahaayeen in si degdeg ah loo dhaqan geliyo go'aanadii lagu heshiiyay si loo soo gabagabeeyo hanaan doorasho oo lagu kalsoonaan karo marka la gaaro 25 February. waxaa si wadajir ah qoraalkan u soo saaray howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM, Belgium, Canada, Denmark, Masar, Ethiopia, midowga Yurub, Jarmalka, urur goboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Japan, Kenya, ururka jaamacadda Carabta, Norway, ururka iskaashiga dalalka Islaamka, Qatar, Sweden, Switzerland, Turkiga, Uganda, boqortooyada midowday ee Britain, dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay. dhinaca kalena madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay jeediyay khudbad lama filaan ah taasoo ay Villa Soomaaliya sii deysay saqdhexe waxaana ka dhashay falcelin aad u xoogan. Farmaajo ayaa khudbadiisu ku sharaxay hanaankii ay u shaqeynaysay dowladdiisu muddadii uu joogay xukunka, heshiiskii laga gaaray doorashada, dib u dhiska ciidamada qaranka, hanaanka siyaasadda, arrimaha dibadda iyo arrimo kale, isagoo sidoo kale fariin u diray shacabka Soomaaliyeed. haddaba falcelin badan ayaa ka dhalatay khudbadaasi. sidee looga falceliyay dhammaan siyaasiyiinta iyo sidoo kale dadka waxgaradka ee kale? Dr. Maxamuud Maxamed Culus oo ah siyaasi ka faalooda xaaladda Soomaaliya iyo doorashooyinka ayaa faalo uu soo saaray ku sheegay in khudbadda uu jeediyay xalay madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday laga dheehan karay xilkasnimo xumo, dareen la'aan, daacad darro, xaqiraad iyo sidoo kale ismoogeysiis ula kaca sida uu hadalka u dhigay. khudbadda socotay 8 daqiiqo iyo 54 ilbiriqsi ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday uu ka jeediyay madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee uu sharci darrada ku dhex degan yahay waxaa laga dheehan karaa xilkasnimo xumo, dareen la'aan, doqonnimo, marin habaabin, duleyn iyo owr u kacsi dhalinyaro nolol u raadis ah, daacad darro, taageero raadis, xaqiraad, eedayn, xusuus la'aan ama ismoogeysiin ula kaca ayuu ku yiri faalada Dr. Maxamuud Culus. dhankiisa xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo qoraal soo saaray ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynuhu isilmaansiiyay in uu aag dagaal ka furay madaxtooyada qaranka balse uu ka hadlay qabkii iyo gobonimadii fagaarayaasha caalamiga ah in la soo celiyay. qabkii iyo gobonimadii fagaarayaasha caalamiga ah in la soo celiyay ayuu noo sheegay balse wuxuu isilmaansiiyay in uu aag dagaal ka furay madaxtooyada qaranka looga talinayo oo qabtii uu soo celiyay ayuu qoraalkiisa ku yiri siyaasiga Axmed Macalin Fiqi. sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray in uu Farmaajo u ekaa nin la soo qasbay isla markaana loo soo qoray khudbadda sida uu hadalka u dhigay. odayga xalay wuxuu u ekaa nin la soo qasbay oo dhiban, nin hadalkiisa ay soo qoreen kuwa caalam kale ku nool, nin ay la taliyaal u yihiin kuwa god iyo haadaan ka sii tuuraya, nin u afduuban kuwa aan ka naxaynin oo ka faa'iideysanaya go'doonka siyaasadeed ee ay geliyeen ayuu mar kale qoraalkiisa sii raaciyay siyaasiga Axmed Macalin Fiqi.
mahad salaad oo kamid ah xildhibaanada mucaaradka ah ayaa sidoo kale ka falceliyay hadalkii madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuuna yiri khudbadda Farmaajo quwaaxii aan sheegay sowma noqon si kastaba khudbadda uu jeediyay madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku soo aadeysay xilli xasaasi ah isla markaana magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirkii golaha wada tashiga qaranka.